maamulka jaamacada Admas farciga magaalada Boorama ayaa maanta kulan la qaatay ardaydii dhamaysatay sanad dugsiyeedkii 2015-2016 ee dugsiyada sare ee gobolkan Awdal iyadoo kulankaas ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareeya jaamacada Admas farciyadeeda kala duwan ee Hargeysa iyo Boorama waxa halkaas kala hadlay gudoomiyaha jaamacada Admas farciga Boorama Axmed Cabdilaahi Talan iyo gudoomiyaha jaamacada Admas farciga Hargeysa Professor إحسان waxayna ugu hambaliyeen ardaydii natiijadii iyo guushii ay ka gaadheen imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka jaamacada kaliya ee maanta aqoonsi buuxa ka haysata international community taasi waxa cadayno ah ardayga barnaamijyada jaamacadan qaata marka uu qalin jabiyo waxa uu xaq u helayaa shahaado maaragtay adduunyada meel walba oo la mari karayo oo maaragtay recognition oo ah mid la aqoonsiyo meel alla meesha adduunyada ka tago uu la tagi karaya taasi waa si guud ardaygu inta uu ku jira jaamacadda Admas gudaheeda waxa weeye jaamacadda qaybaheeda kala duwan haddii uu safro wuxuu xaq u leeyahay inuu meesha uu tagaba oo runtii kaga beeri kara isagoo aqoonsi ka qaadanaya كيف جامعته وحايت بدل لو قياسا ساعات كليه معلم كوكو دغو انا ugu yaraan kaaga baahan tahay 3 saacadood oo aqrisa si aad u fahanto waa daraasad la sameeyay marka inta badan lagu qiyaasay in halkii saacadood ee public class lecture-kii uu baahan yahay 3 saacadood qofka 12 saacadood qaato usbuucii saddex ku dhufo waa 45 saac waa shaqaale rasmiya shaqaalaha rasmiga inta badan shaqeeya waa 48 million yes per week marka waxa weeye qofku haddii uu meesha joogo campuska joogo haddii uu ka baxsan yahayba waa inuu inta badan ku mashquulaa waxa uu soo dhigtay iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacada Admas Professor Tasafuun iyo Professor Sanaman oo ah isaguna hormuudka kulliyadda Social Science-ka ee jaamacada Admas to wish you and to say congratulations on your successful accomplishment of the high school on 4 yeah so humble you I would like to say humble you. Now my speech, better to say presentation, is all about what you are expected as long as you are staying here in the university. What you should do, what you shouldn't do in order to be successful at the end of the third year, because you are going to stay for 3 or 3.5 years here with us, so or 4. For some programs it goes up to 4 years. So what are you expected to do? I will try to give you a sort of brief, a very brief one in fact, idea about what's going on and what is required or expected of you. To begin with, I would like to begin with giving you a background about how Admas University in general was established, what it is, what it has, and about Hargeysa and slightly about Boorama. The best thing and the very easy thing to be a brilliant student is you improve your English. How do you improve your English? Not by reading English, by speaking English. Yeah, side by side to the Somali language which you are speaking, speak English. When you are in the university, speak English. When you are talking to your lecturers, speak English. And then you are going to be very good. Second, just use some additional time to read. Then that is it. In the morning, 1 hour. After like lunchtime, 1 hour. In the evening, before going to bed, 1 hour. Finished. intii ay munaasabadaasi socotay iyaguna dhankooga waxa hadalka iska daba qaatay hormuudyada kala duwan ee kulliyadaha ay ka kooban tahay jaamacadda Admas farciga magaalada Boorama ka dhiman oo magaalada ku meel maro marka hadda waxa joogtaa xilliga adigu dooran lahayd waxa doonayso adoo ku dayanaynin
أما قف صاحب كابا كاو ريجي أما جلس متى بقى جالي لكن قف كل شيء تبي سوق قيمة أو دابا كورسات في عن تاني هدينا كورسات في عن يجلو وأنا صار تعال سوي بس بس كذا ما نجا أيضا كاركوس كبدلنا كنوع فينا بكن الهواء نسكب بدلنا سبيت كذا امتحان ده لقى يا أحوالي وهذا كاو بروسير كوري business administration baa dhigtay laakiin anagu businesska we do different waxaan bixinaynaa degree marketing degree accounting degree management degree human resource management oo intuba kala madax bannaan yihiin halka berigii hore ahaan jireen way isku wada jiro business administration isku dhammaantood marka sidoo kale waxaan bixinaynaa kulliyadaha social science-ka development studies-ka ka mid oo in badan uu sharxay Professor Abdulrashiid isku soo wada duubo kulankani ay jaamacadda Admas la qaadatay ardaydani ayaa ahaa mid ku soo dhamaaday ijo way farxad ku dheehan tahay jaamac Xuseen jaamacadda Space Channel magaalada Boorama.